haddii aad isla dhibanaydeen Facebook remembering iyo sidoo kale Gmail oo aad passwordkiisa ilowday muuqaalkan wax badan ayuu ku tari doonaa. Mararka qaar waxaa dhacda haddii aad Google account-kaaga amba Gmail-kaaga password aad u samaysid oo haddana aad maalmo kadib istiraahid account-kaaga dib u tijaabi amba Gmail-kaaga geli inaad garan weydid. haddaba haddii aad ilowday amba aad garan weydid Gmail-kaaga kama dhigna inaad account-kaaga sidaas toos ku yahay amba uu yahay sidaas mid lagaga guurayo. sidaas oo kale haddii aad rabtid in Facebook hal mar ka wareegtid waxaad u baahan tahay in xogta kugu jirto oo dhan hal mar tiraahid koobi si taas u suurto gasho. waxaan isku tusi doonaa casharkeena gudihiisa waxaanad ku arki doontaa hal mar sida account-kaaga Facebook aad u wareejin lahayd. haddaba ugu horreyn waxaad inoo soo furi doontaa Google-kaaga. kadib markaad Google-ka soo furtid wax kala search gareynaysid account-kaaga ama profile-kaaga taaban doonto. profile-kaaga ma taabatid waxaad oran doontaa halka ku qoran manage your Google account. kadib markaad timaadid halkan wuxuu ku soo dhex keeni doonaa account-kaaga caadiga ah. home-ka waxyaabo badan baa yaala ma garanaysa oo OSC-yadii iyo waxyaabo aad fara badan baa yaala. marka xaggan category way si kala leeyihiin oo si kala qaybsan yihiin. waxaad tigi doontaa ku qoran security. security marka tagtid halka ugu horeysa waxa ku leeyahay horta halka protect your account hadeen nimaadno stepskan mid kamid oo aynu ka boodnay amba iga qaldan ayuu aniga ugu xidhaya waana eegi doonaa. haddii marka niraahdo protect your account wuxuu ku leeyahay two step verification ka waxaan kuugu xidhnayn email. haddaba wuxuu ku leeyahay arki ka fadhi email kanu wuxuu ku saamaxayaa buu ku leeyahay haddii uu account-kaagu maxay ahayd hore oo laga saaro amba uu wax noqdo email kale laga soo xiri karo amba email kale uu soo celi lahaa. haddaba email halkan in kaga darnayna meel kaga darna labada choice wayna kale laakiin si halkan waan ka noqonaynaa meel kale kaga dari doonaa. haddaba halkan u baahanahay two step verificationska iyo waxyaabaha oo dhan ku jiraan waa halkan. ugu horreyn bal waxaan iman doonaa two step verificationka. halkaas baa taaban doontaa ku qoran tahay two step verification. inkastoo account-kan two step verification isku u furan yahay laakiin haddana steps kala marayo waad arki kartaa haddii aad kaliya ku soo dhufatid haddana waa isla arki karnaa. two step verification waxa weeyaan inaad maxay ahayd toole halkan gelisid inuu account-kaaga marka hore Gmail-kaagan caadiga kan ayaan bartan gelinaya. kadib marka kan bartan geliyo wuxuu ogaanayaa maxay ahayd toole anigu kii yahay Gmail-ka lahaa iyo in kale. marka waxa laga baahan yahay in Gmail-kan aan isticmaalo hadda password-kiisa geliyo kadibna aan two step verification-ka caadi wada buuxsado. haddaba haddii inta kaga nimaadno two step verification-ka waxa inoo furan option kale kale wuxuu yahay password-ka. waxa jira si inuu hore TikTok-ta ugu soo aragnay inay jiraan application-la password-da lagu xidho. password-ka haddii aan ku sii dhufto nan aniga weeyaan wax application oo aan u isticmaalaa ma jiraan oo password-da aan ku kaydsado amba password-dooda halkan aan ku kaydsado laakiin haddana password-diisa waxa jira inaad maxay ahayd toolay ku kaydsan kartid iyadoo halkan waxaad password u isticmaashay meelaha kale inaad maxay ahayd toolay application laftirkooda isticmaali kartid. haddaba taas aad si xaqiijisid kaliya waxaad gelin kartaa password-kaaga markaan gelin jirta Gmail-ka isticmaalsi password-kiisa gelinaysa kadibna waad arki kartaa. soo kale waxaad ka heli kartaa halkan wixii password-da goobaha kale aad ku dhex leedahay mobile-kaagan amba aad ku dhex isticmaaltid halkan inaad ku arki kartid. haddaba haddii aynu bartaa ka tagno waxa sameyn kartaa recovery form baad sameyn kartaa oo halkaas hadda waxa ay ku qoran recovery form. halkii ugu lahaa markii dhawta maxay ahayd recovery email-kuna waa kan oo email isticmaale laakiin waxaan isticmaalay lambarku wuxuu iga saacidaya markan isla password-kayga waxaan oran karaa forget baan oran karaa. markan forget yiraahdo waxaan sameyn karaa waxa la rabo meel lagu diro koodkii. marka koodkii waxa lagu soo diri doonaa lambarkan marka lagu soo dirana lambarkii hore ayaan ka geli karaa password-kii aan ilaawo aan password-ka aan isticmaalin. saasoo kale email-ku haddii ay account-kaaga aad rabtid inaad isaga wax ka gudbisid marka mid local account-kan waxa jirta waxa lagu qabto horta inta badan Gmail-iska suspend waa la saaraa mar waa la banner gareeyaa. haddaba hadii matalan tusaalahaan kale account-kan laga suspend gareeyo waxaad u baahan tahay inaad account kale oo kala xidhiidh shirkadda ilaa lambar kale ma xidhiidh kartid oo jiro. marka halkan baad ku xiran kartaa email-kaaga kale isticmaashid oo aad kala xiriirtaa shirkadda si ay wixii qaldan kula soo socodsiiso. haddii aynu xaq ka nimaadno waxaynu hore soo aragnay inaynu ku soo aragnay TikTok-ta iyo Facebook-gaba inay leeyihiin meelo aad ka ogaan kartid waxa mobilada isticmaalaya account-kaagan. soo kale kana uu leeyahay soo kale Gmail-ku wuxuu kaga fiican yahay inaad arki kartid
amba search garin kartid meelaha laga isticmaalayo amba haddii mobile-kan uu kaaga lumo oo account-iga kugu jira inaad ku raadin kartid. Hadaba manage all devices baan doonaa. hadaba marka halkan maadno aniga kaliya waxa igu jira telefonkan iyo PC-gaas ma kaliya igu jira marka aad rabtid inaad maxay ahayd toolay searching gareysid mobile-ka lumay oo kugu jiray kanu oo kugu jiray de password-kaaga amba waxaan uga jeedaa Gmail-kaaganu kaliya waxa taaban doontaa find lost device. hadaba find lost device marka taabatid wuxuu kugu xiri doonaa mobile-ka ayuu ku weydiin doonaa kadibna wuxuu kugu xiri doonaa xagii map-ka ayaa ku tusi doonaa. hadaba find lost device-ku isaga waxa loo isticmaalaa inta badan hore way naga soo yar hadlay oo waxaad sameyn kartaa inaad sameysid waxaad ku raadin kartaa ama waad ku raadin kartaa serial marka ku raadin kartaa kana waad ku raadin kartaa deynka stock kan oo marka laga jabiyo password-ka uu raacayo. hadaba halkan buu kuleeyahay this phone Hargeysa Soomaaliya ayuu yaalaa marka waa isla kanaan isticmaalayo oo wax maaba inuu mu soo dhigin. marka horta waxyaabo badan ayaa lagu raadiyaa account-iga marka aad maxay ahayd oo la isticmaalisid amba aad rabtid inaad waxaysid hadaba bal waxaynu ka bixi doonaa xaggan qaybtan siteska tigidmayno oo isagu sitesku waa application waxaan uga jeedaa website-yada iyo waxyaabaha kale aad ku sii guda jirtin password manager waxa weeye password-da isticmaashay. hadaba halkan waan ka tagi doonaa waxaan qaban doonaa application-kii kale ee Facebook. hadaba waxaynu inta uga gudbeynaa barnaamijka loo yaqaan Facebook iyo sidoo kale habka iskaga xiro lahayn Facebook remembering-ka. sidoo kale haddii aad u baahatid inaad Facebook-ga ka wareegtid sidii aad hal mar xogta kugu jirto oo dhan u wareejin lahayd. inkastoo Facebook hore uga soo hadalay haddana waxaan rabnaa in dhowr maalmood ka dul istaagno. hadaba sidii horeba waxaan soo geli doonaa setting-ka ayaan soo geli doonaa account-igeena waxaan ugu horeysiin doonaa qaybta ah sidaas ka xiri lahayd in lagu saaro account-iga remembering lagu raahdo oo uu qof ka gudbiyo remembering. hadaba si iskaga xirtid remembering-ka waxaad u baahan tahay in aad timaadid option-kan baad iman doontaa option-ka ay ku qoran tahay access and control. access and control ayaad iman doontaa kadibna marka timaadid option-kan wuxuu ku soo bixi doonaa laba option oo kale inoo soo bixi doona amba layna kala siin doona ka ugu sareysay ku qoran tahay memorization aad tigi doontaa. marka kan tagtid waxaad u baahan tahay inaad account-i aad halkan ku xiratid. hadda tusaale ahaan oo kale amiga account-igaas baa igu xiran qofkaas oo kaliya ayuu remember saari kara ama iga gudbin kara haddii aan ka baxo Facebook iyo haddii aan dhintaba. dadka kale oo dhan awood uma laha inay wax la dhaqaaqa ka dhex sameeyaan account-iga iyagoo isticmaalaya habka remembering. markaas oo kale haddii aad Facebook kala ka lumo waad ka remove gareyn kartaa laakiin si haddana adigu account-igaas ayuu hel account un baa awood u leedahay inaad ku xidhatid. okay hadaba haddii aynu nimaadno qaybta kale ah sidii aad waxa kugu jira information-ka ugu copy gareyn kartid meel kale waxaad iman doontaa halka ku qoran transfer copy of your information. halkan marka timaadid waxa ku soo baxaya dhowr option baa ku soo dhaxay si iminka sheegaynaa. haddii inta mid kamid ah isticmaashid oo Google Photos-ka Google Docs-ka waxyaabahaas hadii isticmaashid Dropbox-ka haddii waxyaabaha mid kamid ah isticmaashid ayuu baad ku xiri kartaa in baad ku sii deyn kartaa. soo kale halkan haddii aad isticmaalisid iPhone amba mobile kale oo aanan daryeelahayn iCloud iyo waxyaabihii kale ee daluu kala duwan ayaa ku soo bixi doona. marka hadda aniga waxaan baa ugu fudud Google Transfer Google Photos-kan uga jeedaa Google Photos marka taabto Gmail-ka aan adeegsan doono ayuu siin doona. connect baad oran doontaa connect marka timaad tiraahid wuxuu ku oran doonaa akoonada horta igu jiro dhan buu soo tixi doonaa. akoonada markuu soo taxo account-iga aan rabo inaan ku forward gareeyo amba aan ku maxay transfer gareeyo aan taaban doona. intaas oo akoon ayaan rabaa inuu mid kamid ah oo ku fasaxo. marka halkaas uma taaban doontaa akoonadaas ayuu ku sii deynayay kii aad dooratid. marka halkaas ayaynu muuqaalkeenan maanta ku soo gabagabeyn doonaa waa qaybtii labaad ee security alert ka hadlaynay. insha Allah waxaan jeclaan doonaa inaad la socon doontid qaybaha kale aynu soo gelin doono kanaalkeena YouTube. aad iyo aad u mahadsantahay.